kusoo dhawow barnaamijka nasiibka daawadaha ee Jubbaland TV adigoo magacaaga ku bilaabay. bismillaahir rahmaanir rahiim waxa la dhahaa maxamed jaamac dayib. maxamed ina su'aal ku weydiina diyaar baa u tahay Soomaa? ha diyaar baan. maxamed waxaad sheegtaa meydka xalaasha. meydka xalaasha waa kalluunka iyo ayax. maxamed waxaan weydiinay waxaad sheegtaa meydka xalaasha wuxuuna ku jawaabay waa kalluunka iyo ayaxa su'aashiisuna waa sax. hadiyaddan maxamed waxa kuugu tala gashay shirkadda isgaarsiinta Somtel maxaa leedahay? wallahi Somtel way fiican tahay. Somtel meel baan joogaan taageera muddo badan aan lambarkeeda san jiray imika ma haysto laakiin waa shirkad fiican dhalinyarada dhiirigeliso mar walba garab taagan weeyaan. hadda inaad lambarkeeda qaadato ma doonaysaa oo aad la noqoto macmiil? diyaar baan Somtel ugu soo fiican tahay macaamiisha fiican tahay dhalinyarada fiican tahay inaan qaataan ku qasbanayaa waana mahad celinayaa. aad baad u mahadsan tahay maxamed. hadiyadaasi barnaamijka nasiibka daawadaha ayuu nasiib u yeeshay. waxaana weydiinay su'aasha ahayd waxaad sheegtaa meydka xalaasha wuxuuna ku sheegay ayaxa iyo kalluunka waana sax sidaasuna hadiyadiisu ku yeeshay. waa mahadsan tahay maxamed. kusoo dhawow barnaamijka nasiibka daawadaha ee Jubbaland TV. aad iyo aad baan u dhowahay aadana u mahadsantiin. haye adigoo magacaaga ku bilaabaya inaan su'aal ku weydiin diyaar ma tahay? aad iyo aad magacaygu waa Ugaas Cali Sokor. su'aal in la weydiina waa diyaaran waay. waa mahadsan tahay Ugaasow. su'aasha ku weydiinana waxa ay tahay waxaad sheegtaa geedka ka baxa jahannama. waxaa la yiraahaa shajar suquum. waxaan weydiinay geedka ka baxa ee jahannama wuxuuna ku jawaabay suquum sidaasina jawaab sax ayuu ku bixiyay. wuxuuna nagu leeyahay Ugaas hadiyaddan ay ugu tala gashay Somtel su'aashina waa u saxay. Ugaas Somtel maxaa leedahay? Somtel waxaan ka mid ahay macaamiisheeda aad iyo aad waliba internetkeeda aan isticmaalaa. waxaan leeyahay shirkad Soomaaliyeed ah dad Soomaaliyeed iska leeyihiin dad Soomaaliyeed ay isticmaalaan anna waxaan ka mid ahay macaamiisha ugu horeysa ee isticmaalo haddana waa sii laba jibaari doonaa insha Allah. aad baad u mahadsan tahay Ugaas waan kaaga mahad celinaynaa. kusoo dhawow barnaamijka nasiibka daawadaha ee Jubbaland TV. aan ku dhawaay walaal macaan. magacaaga noo sheeg. Farxiye Xasan walaal. Farxiye inaan su'aal ku weydiino diyaar baa u tahay? diyaar baan walaal. waa tahay Farxiye waxaad noo sheegtaa ninkii daqray nabiga dagaalkii Uhud. ninkii nabiga daqray dagaalkii Uhud hadaa isku dayo ibn Qayma waa. waa tahay Farxiye waxaan weydiinay kuma ahaa ninkii daqray nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaalkii Uhud waxayna sheegtay inuu ahaa ibn Qayma. su'aashana saas ayay ku saxday. Farxiye waxa ay leedahay abaalmarin hadiyada oo ay ugu tala gashay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. hadiyaddan waxa kuugu tala gashay oo barnaamijka taabagelinaysa shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel horta macmiil ma la tahay? macmiil baan la walaal mar walbaba. aad baad u mahadsan tahay Farxiye. waa kaaga mahad celinaynaa sida wacan barnaamijka aad uga qayb qaadat. kusoo dhawow barnaamijka nasiibka daawadaha ee Jubbaland TV. ما شاء الله وابسولو أدي adigoo ku bilaabaya magacaaga diyaar ma u tahay inaan su'aal ku weydiino? ها ديار بنوا إن شاء الله وهالي هذا معلن عبد الوهاب مرجان حاج حسين. waan ku soo dhaweynaynaa macallin. waxaad sheegtaa su'aasha ah goormay ayuu Ingiriis Mareykanku ka xoroobay Ingiriiska? waxaa ku xoroobay 1900 labaatan koowdii. magacaaga noogu celi. معلن عبد الوهاب مرجان. macallin Cabdiwahaab waxaan weydiinay su'aasha ah goormay ayuu Mareykanku ka xoroobay Ingiriiska wuxuuna ku jawaabay 1900. su'aashaasna waa qalad laakiin waa ku maasantahay iska daygaaga waana kaaga mahad celinaynaa. ku soo dhawow barnaamijka nasiibka daawadaha ee Jubbaland TV. waa ku dhawaay walaashay waa ku dhawahay. magacaaga? maxamed cali maxamuud. maxamed inaan su'aal ku weydiino diyaar baa u tahay? diyaaran waa haa. waxaad sheegtaa kuma uu ahaa ninkii daqray nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaalkii Uhud. haddaan isku dayo wuxuu ahaa abi jaahil. waad mahadsan tahay maxamed isku daygaagu waa wanaagsan yahay balse ma aadan haleelin. Ibraahim soo dhawow inaan su'aal ku weydiino diyaar baa u tahay? aad iyo aad diyaar baan wahay wax soconayo. maxamed waxaad noo sheegtaa xilligii uu Mareykanku ka xoroobay Ingiriiska sanadkii.
sanadkii uu Maraykanka ka xoroobay Ingiriiska miyaa 1900 afartan waad mahadsantahay maxamed waxaan weydiinay su-aashii ahayd goorme ayay Maraykanku ka xoroobay Ingiriiska waxaana ku jawaabay 1941 balse su-aashu waa qalad oo ma u sahaleelin balse waa ku mahadsantahay maxamed isku daygaaga waana kaaga mahad celinaynaa ku soo dhawo barnaamijka nasiibka daawadaha Jubbaland TV waa dhow magacayga Abshir Allah abshir soo dhawow waxa idinoo sheegtaa haddii aad garanaysid xilligii uu Maraykanku ka xoroobay Ingiriiska 1985 ayuu yiri su-aasha aan weydiino ahayd goorme ayay Maraykanku ka xoroobay Ingiriiska balse waad isku dayday maxamed waad maasantahay sidaad barnaamijka uga qayb qaateen waa kaaga mahad celinaynaa su-aashana maada haleelin isku day wacan ayaan ku rajaynaynaa